بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada meel baad joogtiin. arrinkan rabo inaan nigala hadlo waa arrin aad iyo aad xasaasi u ah. soo dhawaada walaalayaal, waan baryayaa. soo dhawaada meel baad joogtiin. aad iyo aad baan baryayaa. soo dhawaada. waxaan rabaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan ka hadlo arrin aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad xasaasi u ah. anigoo ah aabihii qaaqaanyaasha jiilka saddexaad dhalinyarada aad nagu dheer political assignment. mawduucan maanta ka hadlayo waa mawduuc u baahan inaan ka hadlo dhalinyarada u waadax oga dhigo. waa mawduuc keeni kara fidno. fidnada dhibka ugu weyn waxa weeyaan fidnada waxay gaartaa wax ah qofka fidnada sameynaya waxaa dhacdo in laisku dilo, waxaa dhacdo in dhaawac laisku gaarsiiyo. kaasina markay diinta soo gashana way kasii fogtahay. waxaa beryahan meediyada kusoo kordhay inan yaroo sheekh ah, sheekh dhan walba markaan ka fiiriyo ah, qof maskiin oo nadiif ah oo diinta ku wadanin dan gaareed, oo majmuuco gurub ku jirin, wahaabiyana ahayn, inkastoo aan wahaabiyada kasoo horjeedo. nimankan wahaabiyiinta ah iyo nimankan salafiyiinta la dhaho ay u badan yihiin. salafiyiinta kuwa kasoo noqdo mar badan culamada salafiyiinta badanaa salafiya oo ay kasoo baxaan salafiyada. maxaa dhacay? waa diin ku salaysan radical iyo dil. maaha diintii shaaficiga ahayd ee aan kusoo qarno. kuma dheeraanay. waxaan rabaa maanta inaad si fiican ii dhegaysateen. markaan baaritaan ku sameeyaan meel bala hadlay. sheekhuna horta magaciisu waxaa la yidhaahaa cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed aa la yidhaha, ku magac dheer kishki. wuxuu ku dhashay xamar, kaasatan degmada shingaani 1968. waa nin yar, aada iga yar. waxaana sheekh quluqul diina kusoo barbaaray diinta. markaan dib ugu laabtay xaafaddaa uu ku dhashay shingaani, oo aan dad badan dhalinyaro hadda weynaatay badan ka wareystay, oo aan wareystay sheekhii dadkii dariskiisa ahaa muxuu qaban jiray, ayaa rabaa maanta inaan nila wadaago. qofka markay duntiisa fiican tahay waa adag tahay si uu murtad ku noqdo. waxaa la ii sheegay sheekha diinta barashadeeda wuxuu bilaabay 6 jir, 4 jirna dugsiguu ku aaday. walaalkiioo ka weynna wuxuu kusoo barbaariyey u daari jiray sheekh kishki oo la garanayo. dugsi sarena waan soo weydiiyey nimadii la dhiganayay sheekha wuxuu ka dhigtay sakhaawudiin dhanka carabiga ah. sheekha waa khuluq almasjid. sheekhu wuxuu dugsi sakhaawudiin ka dhigtay, wuxuuna kusoo barbaaray masjid nuuraani oo faqiirka ka bartay. imaan shaafici, safiino salaa, intaasna wuxuu ka bartay masaajidka nuuraani oo garanaynaa. masaajid ama koji oo ku yaalla xeebta tajriin buu ku bartay iyo waxyaalo kaloo badan. sheekhu markuu ka soo baxo iskuulka wuxuu aadi jiray masaajid jubbo galaasheeda ku yaallo oo asna uu fiqiga ku baran jiray. wuxuu kaloo wax ku baran jiray markay tahay galabtii iyo marwaas sheekh ibraahim suuley ayuu asna tafsiir ka soo dhegeysan jiray. wuxuuna aadi jiray iskuul macruuf ah
oo af carabiga lagu barto oo la oran jiray shariif maxamed salaada casirka marka kasoo baxo iskuol buu dhigan jiray oo af carabiga ku badan jiray iskuolkiisa qaawadiin uu kasoo baxayna af carabiga 3 jeer 4 jeer ilaa uu ka dhameeyo wuxuu ahaan jiray ninka iskuolka ugu horeeya waxbarashada sacuudiga usoo gudbeen jaamacad al-azhari masar buu kasoo baxay haddaan dhoo sheekha khuluqiisa diintan ka sheekeynaya 4 rukun ayuu sidaasoo kale salaada maqribka ku dukan jiray 4 rukunna tasfiir uu ka dhagaysan jiray cishaha marwaas ayuu sheekh ibraahim suuley asna tasfiir ka dhagaysan jiray marka waxa aan ka hadlayno waxa weeyaan khuluqul diin nin iskale alxamdulilah maasha allah wuxuu kusoo koray 4 jir 6 jir ilaa waqtiga aan maanta ku jirno khuluqul diin mana ilo aho masaajidyada aan ka hadlaynay shaaficiga ah inuu kasoo baxayo taalib ama salafi ah ama wahaabi ah ama gruubyadan baayacadiinka ee zandiiqa ah ilama aho masaajidyada waa wada garanaynaa soomaaliya inuu kasoo baxin nin nooca ah marka anaga hadda waxaan dhibaatada ay ka timid waxay isku haystaan wax ah groupkan salafiga ah ictisaam ah wadaado canada joogo kenya joogo meel walba joogo waxay naqatay in grupo mafia ah dhaqaale ku aruursado masaajidaan dhiseena dadka filosofiya inay madaxa ka qabsadaan ayay wataan maantu waxaan jeclaan lahaa in videogeygan lagu soo jawaabo credibility uu leeyahay sheekha shibili ma leeyahay maya waa nin yaman wax kusoo bartay waa nin sacuudiga wax kusoo bartay 7 sheekh iyo umul iyo waxa lahaay waa nin sacuudiga wax ku bartay waa nin yaman wax ku bartay waa wahaabiyada ama salafiyada waanu garanaynaa waxa la isku hayaa ay nimanka dhacday qabadkooda haddaan galno ay maantu daahir cali soo waxna fiirin iska caayiyo sheekha maa malyuun iska caayayso qabiilku caytamayso dad badan iska caytamayaan markii la kufriyey sheekha la yidhi sheekhan waa murtad waa kufri waa kan wax walbaa la sheegay waxaa la yidhi xataa sheekh kishki rajo ma leh inuu tooba keeno ma rabo waxay yidhaahaan sheekh siisi kutubka akhlaani oo aqliga in diinta laga hormariyo ayuu aaminsan yahay kan taasina marar badan uu ka socdo waxaan ku guulaystay in aan aruuriyey fiidiyaasha sheekh shibil ayaa yidhi waa murtad waa mulxid kilibyo been ah yidhi kishkii wuxuu qabtaa inuu qur-aanku makhluuq yahuusan dhameen ayuu yidhi waxay isku haystaan wax meesha kasoo baxay kilibyada uu soo googooyey shakisha kilibyadiisa ay wadaadada isticmaalayaan waa fake waa photoshop waa kilibyo la googooy waa musawar kullu musawarna qatroge waxay isticmaalaan kilibyo ay googooyeen aan dhamaystirneen ee hadafka lagu wata ee tahay in diinta lagu dhaawaco kishkina lagu dhaawaco kishkina waxaa runtii markaan kilibyadaa aruuriyey oo 7 wadaadada uu ka mid yahay shibili iyo qof walbaani igu soo weeraray igula hadlo oo yidhi ninka ma garanaysa caawiya uu ku socdaa hadalkeeda waxay isku haystaan shibili iyo dad uu soo diray iyagoo 7 wadaada ayaa wada fadhiistay Canada iyo meelaha waxaa la isku haystaa bukhaari muslim daciif uu ku jiri karaa iyo kuma jiri kara iyo waxyaalo oo technical yaray isku haystaan waxay kaloo ku haystaan ay ku oranayaan rejimka la dilayo qofka zinaysta iyo kaasne daliil ii keenu yiri sheekh aniga waxaan maanta ka hadlayaa kilibyada sheekh
aad gaballo xasaasi ah laga soo qaado diinta iyo rasuulka lagu dhaawacay ayaan ku guulaystay rag madiine iyo maka igala soo hadlo idhahay sheekhan adaan kugu aragno saaxiib baatiin yani maalintii koogan kasoo hadlaya iyadoo lala dagaalayan ka had markaasaan iri maxaa waaye sheekhan iisoo micneeye fataabo bal iga siiya kalibyadan xasaasiga ah microphilia ka hadlayo waxyaalo badan ka hadlayo calmaaniya ka hadlayo aqlaani waaye la oranayo iyagoo gogo-an oo clib la moodo ayaan u gudbiyey nimankii sacuudiga joogo soomaaliya waxaan weydiinay caraba wadaad baa igu yiri ninkani fiqina weeyaan cilmina wuu ku hadlaya aqlaani kama arag laakiin kilibyadan waa khatar wixii la qariyana waa qoran uu yiri xaaraan baa ku jirta waad ku mahadsan tahay inaad noo soo gudbisay waxaan laakiin kuu sheegaynaa yiri kilibyadan waa been kilibyadan waa kilibya loo isticmaalo been abuur hadduu kilibkii dhammaan been abuur baa loo isticmaalaa waan isla raadinay kilibyada sheekha ee youtube ku jiro waa wada dhammaystiran yihiin sheekhu wuxuu iimaan ka ahaa markuu soo gudbay osnabrug meelay dhahaan ay u dhowdahay odayaalaa joogo raggii uu dejin jiray halkan ayuu imaamkii koowaad ka naqdaa la yiri waa sheekh wanaagsan waxna kuma arag kutub uu fasiri jiray iyo waxaan helay buugaag uu wax ku qori jiray sheekha dadkiina waxay yidhaaheen maasha allah anagu dee facebookna kuma jirno youtubena kama arag laakiin anagu si rasmi ah buu inankeena ahaa asoo dhalinyaro ah imaamkeenuu ahaa ninkaa wadaad lamid ah weligii ma arkin yiri odayaashii meesha masaajidka jarmalka uu sheekha ku dejin jiray joogo oo qaari dheen xataa taleefonkii noo raaday dheheen malcamadoo dhigi jiray ciyaalkuu qur-aan baray alxamdulilah wajazaaka allah khayran leenahay sheekh kishki waxaa dhacday sheekh kishki inuu maanta ku nool yahay dalka canada masaajidna uu imaam ka yahay marka waxaan la hadlayaa dadka meediyada ku jiro nima caayay horta maxaa dhacay waxaan leeyahay ittaqullah annagaan iscaano dabacseeran caano daar cali soo caano islaanan caano laakiin sideedaba wadaadadu iyaga isu daaya xaqaani naqda isku kala fiiriya maanta waxaan dhalinyarada u sheegayaa meel walba joogo kalibyadaa lagu aflagaadeynayo sheekha waa kalibyo aan dhamaystirnayn oo gogo-ano munaafiqnimo ah uqsimu billah aan leysamo uqsimu billah kishkii waa nuur cilmi ilaahay noo soo diray siiba jiilka saddexaad sheekhaa dhageysta sheekhaa la xiriira sheekhaa waxaad ka baranaysiin cilmi ku salaysan addiinu macaamila hadday fiqi tahay hadday sunno tahay hadduu cashir qur-aan yahay hadday waxyaalo badan tahay sheekhani waa sheekh nadiif toddobada sheekh uu kaabo groupka u yahay sheekh shibili waa garanayna qur-aanka hadalku ku hadlayo koofiduu gashan yahay siduu isku qaaqaadayo siduu u jeesteynayo saac dhahayo dheere iska dhigay professor un pallone gonfiato waxaa le waa buufin la buufiyey sheekhnimo maaha garka la guduudsado sheekhnimo maaha koofid la gashto sheekhnimo maaha toobka la gaabsado waa nimanka maanta ee sheekh umal ka hadlayo naagtaadu waa kuu seegeyn kartaa ee ah sheekhyadan sexy mashiinka ah ee maalin walba ugu jiraa youtubeyada iyo muxaadaradaha ay ka hadlayaan habrahan ayuutooyinka qaatay iyo ka sheekeynaya wasmo laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah sheekh umul wuxuu gaaray heerkii dabacaseer iyo heerkii maama malyuunna waxay ku haysaa waa la kufsaday dabacaseerna wuxuu ka haystaa saliid dabada ku shubta waa kacsanaysa kan kale umul ay yidhaahaan wadaadkaani wuxuu leeyay naagtaada kuu seegeyn karto marka meel ma wada geli karaan
ninkaa sheekh shibilina waa cabdallah bin umeya. cabdallah bin umeya rasuulka safka hore u kula dukan jiray madiina, haddana intuu buxuu rasuulka caayi jiray wax ka sheegi jiray. waa loo soo sheegay cabdallah bin umeya cabdallah bin umeya waa dilaynaa yidhi asxaab mayu yidhi shaquu ii wadaa daaya. maxaa dhahay rasuulku wuxuu yidhi alayhi salatu salaam dadku igu soo caaya ayay imaanaya markay arkaan ayay ibarinayaanay beeninayaan hadalkiisa. marka waxaan odhanayaa dadka sheekh shibili dhegaysanay ee sheekh shibili la hadlay, taga masaajidka imaamka joogo cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed kishki, taga masaajidkiisa wareysta. wuxuu ka dalbaday dibeed inay wada fariistaan, ma aysan yeelin. sheekh shibili waa cabdallah bin umeya, munaafiq malcuun oo meel allaale meeshuu joogana ay nacrad kusoo degayso. waa munaafiq malcuun sheekh shibili haddii aad qabiil ku raacaysa. shibili waa sheekh cabdallah bin umeya, weediyayuu ahaa cabdallah bin umeya. wuxuu ahaa kadaab, wuxuu ahaa fidnoole, wuxuu ahaa munaafiq. shibili waa kibili, kibiliga markiinu darbiga ku dhigin habeenkiisu waa kibili malcuun zandiiq munaafiq ee group suubsaday ee doonayo maanta inuu ku adeegto ictisaam iyo ahlusunna iyo balaayo iyo waxaan jirin. اقسم بالله ثم اقسم بالله لله اتقوا الله اذا جاءكم فاسق بحاول اذا جاءكم فاسق بنبأ هل هو بيو وايو منك وحشيغاي وحان الله الشيخ شبلي وكبلي الشيطان منافق ملعون. ما شاء الله sheekhan cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed kishki waxaa lagu haystaa waa iska reer shingaani, waa iska maskiin, waa laangaabaa la leeyahy. marka dhallinyaradaan u sheegaya sheekh cabdiraxmaan cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed kishki waa khuluquldiin, waa khuluquddiin. masaajidyada aan soo tiriyey in yar baa garanaysa dhallinyarada, waa kuwii la boobo la jijibiyey. masaajidyada aan soo tiriyey ayuu khuluquldiin ku yahay. saantuu qaado ama dugsiya ahayd ama iskuol bay ahayd ama masaajiday ahayd ama masaajid kaleed ama masaajid kaleed ama waxbarasho luqadda carabiga ah, ninkaasi ma qaldami karo. ilaahay wuxuu yidhi kelmad weyn baa nii sheegaya. wuxuu yidhi min sallaa jamaaca salaata asubx bidimati, rasuulka xadiis rasuulka laga bidimati yii ninkii rakcateen salaata subax dukada dimadaydu saaran yuu ilahay wax ka halaabay ma albaabada u furmay. kishkina waa imaam salaat subax dujiye, imaam canada qabow dhacayo wadan gaal ayuu salaat subax dujiya masaajid. marka fi dimati illah waa ragga raba inay diinta salafiyada meel mariyaan iyo meel marinayaan diintan hadda ay la yimaadeen wahaabiyada, inay wadaadadu takooraan, inay naqdaan tiam, inay ku shaqaystaan, maaliyad ku aruursadaan, hodheelo ku dhistaan, moolal ku dhistaan, wax walba ku dhistaan, dumarka ku qayaaraan, ku guursado, dumarka wax kala furo iyo kuwan waa shaydaan. shibili waa kibili, waa kibili ma garanaysi bibistrela laakiin darbiga ku dhegan wuxuu qabsaday guryaha darbigooda u qabsaday. waa shaydaan, waa cabdallah bin umeya, waa wax ma dhaamo maamalyuun. laakiin aniga maamalyuun iyo daar calisow ayaa kishki ka hadlaya, kuwaasi jawaabba uma baahno. makaanka daahir calisow iyo makaanka cabdiqaadir kishki de meel bas kuma soo gaaraan. waa dhuuso daar calisow ninkaan qowl allah wa qowl rasuulka hadlaya malyuun iska daaba wala lasha perdere quella haba ka hadlintaas. marka waan islaamayaa sheekhana waxaan oranayaa jazaaka allah kheer. sheekha waxaan ku waarinayaa inuu sabro, in uu raadin inay dadka aqoonsadaan. caqiidadu waxaad u haysaa ilaahay iyo ummadda muslimka, aqoonsiga uma baahnid. cilmi yaqiinna waxaa ilaahay
وتوكلت بالله ده حسبي الله ونعم الوكيل ده نوح كاترين رسولك اللي عايجر عليه الصلاة والسلام يهود عايجر توح لقى شيء يجري عبد الله بن أمية عاني مركب كبيلي وعبد الله بن أمية عرنا الشيخ شبيلي ما شيخ كبيلي وعبد الله بن أمية أسترا فيتوريا سيمبرا خياش وأنا سنتي ملك جوكتين وأني سلامية شيخ أسنا وحن كبريا إنه نود دعيو وعيال كنا هدو إلهي يراهو قرآنك يوحول بتصويرك إلا مقدشو هدو محو كفري مدرسيال إلهي وحن كبريا إنه كو زائد شو علمي إيوه والله خيبستك علمي قا ومدى الله خيبسنيست هاسترا فيتوريا سيمبرا خياش مع السلامة